waxay yiraahdaan culimadu biyaha qabow dadka cudurrada qaba il iyo sixir iyo jin haduu ruuxu qabo inuu ku dadaalo inuu biyaha qabow ku maydho waa dawo mujarrab aweeyaan oo quraanka kariimka sheegay laakiin cid walba marka inay isticmaasho ma ahan waa in marka hore aanu ruuxani qabin xanuuno qabowga kullid ah مثلا qofku haduu asma qabo kale ama rheumatism oo kale haduu qabo ama ay dhaxani ku jirto waxaan kolba aariyada aad tirahdaan oo kale kuwa yowga haduu ka badbaado qabo dariiqa ugu sahlan ee lagu la dagaalamo isha iyo jinka iyo sixirka waa biyaha qabow oo lagu maydho waxna laga cabo hadii biyo qabow aroorta hore aad ku maydhato oo duhurkii ku maydhato oo habeenkii ku maydhato biyo qabow way aad iyo aad bay ugu neef qabatoobaan shayaatiintu manax iska xajin karaan waxa markaa suurtagala muddo yar hadii aad dawada wado in aad ka guulaysato cadawga ku soo weeraray ee dhibaatada kugu haya waa mas'alo aad loo tajribeeyay biyaha qabow ku maydhashadoodu inay daawo ka tahay mas shaytaan rabbi inni massani ash-shaytaanu binusbin wa cadaab kharash badanna kuguma fadhido wadaadaad u tagtana uma baahnid marka inaad biyaha qabow aad laazimto inaad ku maydhato aad iyo aad bay ku anfacaysaa ha laga warhayo hadii Allah yiraahdo